sixir iyo qabyaaladii ka daran sariya daacuune mar hadday qalbiga seexato saabka ku cawayso waa cudur caqliga suuliyoo lagu sumoobaay saalaxal wareerkiiyo bulshadan seexan kari weyday siiliga colaad iyo sharkiyo siifadiga boorka iyadaa saraayaha dhashiyo siica nololeed waa saawasaawiyo col iyo saymo diriireede marna waa sabaan iyo abaar soof mareebta ahe sabi iyo haween kama tagto iyo saancaddaha weyn sagal hoolay doogoosidmoo lagu sureeraayo sareerada markay kaa qubtiyo subaga ceegaaga sabool iyo waxay kaa dhigtaa surugla cayreed sisaarada gumaysigu markuu qolo suldaaraayo sake laga wareemo iyo markuu dabil u soo haayo suryadu inoo soo mariyo sababta weeyaan safiih iyo waxay caawisaa saaqid iyo tuuge kolba bahal khiyaano u socda ya saamuhu tuma Soomaali waa wixii rogoo seetadu jarayd bilowgii 1990 qaranjabkii Soomaalida ku dhacay wixii ku wacnaa weli la islama meel dhigin sababo dhowr dartoodna ma filaayo faca maanta noole si aan hayi ka lahayn inay isula meel dhigi karaan xukuumadihii 1960kii talada dalka gumaystayaashii reer Yurub kala wareegay marbaa qaranjabkaas wax laga saaraa mar kale waxaa loo saarayaa mucaaradkii hubaysnaa ee inta qaabtooleedka isu abaabulay dowladdii jirtay sidaas ku dumiyey waxaase loo badan yahay ayna u eg tahay in la isku raacsan yahay in qabyaaladdu ay ahayd sababaha tii ugu darayd ee ay eersatay ilaa haddana ay la hinqaladahay yeelkeede 70kii gu ee aynu soo dhaafnay marnaba maantayahanada Soomaalidu kama aamusin iftiiminta dhibaatada ay qabyaaladdu bulshadooda ku hayso marnaba hagar kama ay gelin inay ku dheeraystaan maanse gabaye iyo heesaba leh oo ay ummadda ku dareensiinayaan in dowladnimo iyo qabyaaladii aysan meel wada geli karin oo labada in midkood la doortaha joogtee aysan suuragal ahayn in lagu wada dhaqmo siday ila tahayna weli waxaa nool waayeel badan oo xusuusan hal abuuradii la dagaalanka qabyaaladda ku caanbaxay ee Allah u naxariistay ay ka midka ahaayeen Cali Xuseen Timacade Cali Cilmi Afyare Cali Ciise iyo 1967kii Cali Sugulihii dowlad iyo dadweyneba ku baraarujiyay dhagax iyo dab la iskuma dhuftee kala dhowraay wax ka dhigan gobonnimada qabiil dhexgale kala dhowraay kala dheer labaduwe kala dhowraay inkastoo xilli walba ay jiraan hal abuuro ka xoroobi waaya soo kicinta iyo guwaabada toltolka ku dhisan haddana iyaga bulshadu ma xusto hadday xustana wanaag kuma xustee waxay u sara joogsataa codka markay maqlaan kuwa danteeda farta ugu fiiqa ee in yar ka hor aan qaarkood soo magacaabay Axmed Colaad Qorane oo loo yaqaan Abwaan Qorane waa maansayahan dhibaatooyinka Soomaalida haysta dhab uga murugooda dhowr sano ka hor berihii habsiyaasadeedka federaalnimada iyo Soomaalida la isku sidkaayay ayuu ka mid ahaa dadkii uu habkaas dareenku ka galay dadkii u arkay inuu yahay qabyaaladii oo magac cusub loo bixinayo iyo kala qoqob hor leh oo bulshada lagu kala fogeynayo markaas buu tiriyay gabay uu ku qeexayo goobta foosha xun ee ummadda uu ku abtirsado ay qabyaaladdu dhigtay dulucda ka horse wuxuu gabayga ku bilaabayaa arar hadiiba laga garan karo ujeedada guud ee uu xambaarsan yahay arar muujinaysa hugunka laabtiisa iyo cadowlyowga xilliyada qaar ay naftiisu la xasili weydo waa gabay dheero qaybo kamida inaan mariyo mooye aanan idilkiis idin soo gudbin karin waqtiga aan haysto oo kooban awgeed wuxuu ku bilaabay waayadanba waan sagalsanaa saaxi ma ahayne si aan ahayba mooye qalbigu waysan qarayaaye saqda dhexe habeenkii ninkaas oogan baan ahay siduu cadowgu noo kala sidkaye saxalku noo fuulay caqligii wax suuradin lahaa waa la saanyaday 9 dowladood oo yaryari sabi ma deeqaane waa sida shisheeyuhu rabiyo saalax waatuuye sacabkayga oo maran markaan sare u taagayo Soomaali weyn oo midax yaan saadiyaa weli ha yeeshee suntii lama daweyn saancadka lahayd suxullada sidaan uga jabnay ee sabarku noo ciiray sahwi iyo halmaan bay igu dhaca saacadaha qaar qayb uu kaga hadlaayo milgada ay midnimadu leedahay iyo haddii muruqa iyo maanka la isu geeyo liminta lagu gaari karo taasna wuxuu ku tusaaleynayaa cayayaanka taagta daran ee dhuldaha aynu ku magacawnaa siduu surta macaanka badan wadajirka ugu samaysto
iyo dhinaca kale hoogga iyo ba'a khilaafku leeyahay soomaalidana uu baday. wuxuu yidhi sutaad aragtay ee suuban eed sixinka moodayso si kastaba u eego waa dhurdaha waxa sameeyaaye sabankiiyo wuxuu kaga baxaa sulufta jiiraane lafa soo halseed iyo cad iyo saani kuma taale si kalaa raxmaanku u khalqiyo sawrac gooniyahe sinaan iyo ismaqal buu filkii kaga sarreeyaay wax waliba markuu wada socduu sare u guuraaye mar haddii khilaaf lagu sallado seegtay marinkiiye sida iyo haraad kama baxaan waa sidaan nahay. meelo kale oo gabayga ka mida ayuu ku tilmaamayaa sideedaba waxa ay qabyaaladdu u taagan tahay iyo ba'a ay bulshooyinka ku markato sida colaadaha lagu hoobto iyo gaajada ku mataansan. dhinaca kalena wuxuu u arkaa inay tahay hubka si walba dadka isugu midka u ah uu gumaysigu ku kala qaybiyo markaasna uu danihiisa kaga fushado. wuxuu kaloo leeyahay qabyaaladda waxaa ku adeegta qof aan kartidiisa wax ku qabsan karin dawdarka iyo tuugga gabaadka iyo gaashaanka ka dhigta. wuxuu yidhi sixir iyo qabyaaladii ka daran sariya daacuune mar hadday qalbiga seexato saabka ku cawayso waa cudur caqliga suuliyoo lagu sumoobaaye saalaxal wareerkiiyo bulshadan seexan kari weyday siiliga colaadiyo sharkiyo siifadiyo boorka iyadaa saraayaha dhashiyo siica nololeed waa saawasaawiyo col iyo saymo diriireede marna waa sabaan iyo abaar soof mareebta ahe sabi iyo haween kama tagto iyo saancaddaha weyn sagal hoolay doogoosidmoo lagu sureeraayo sareerada markay kaa qubtiyo subaga ceegaaga sabool iyo waxay kaa dhigtaa surugla cayreed sisaarada gumaysigu markuu qolo suldaaraayo saka laga wareemo iyo markuu dabil u soo haayo suryaduu inoo soo mariyo sababta weeyaan. safiih iyo waxay caawisaa saaqid iyo tuuge kolba bahal khiyaano u socda ya saamuhu tuma soomaali waa wixii rogoo seetadu jarayd iyadoo sibraha qaawisoo saanad iyo xoog leh mar hadday silsiladihii jartoo sagabihii tuurtay wax tanceeya saakaan lahayn oo sokeeye ah. mar kale wuxuu axmed colaad ina xusuusinayaa dagaaladii qabyaaladda ku dhisnaa dhibaatooyinkii ay soomaalida dhaxal siiyeen iyo nolol ahaan siday ugu baaba'day. wuxuu yidhi soonaha hargeysa iyo burciyo saaxil iyo awdal sool iyo sanaag iyo halkiiyo sulinka boosaaso galgaduud salkeedii iyo mudug seesha beledweyne sinta jawhar iyo baarcad iyo webiga seeraara sakadii banaadir iyo bay sabada baar dheere seeriga bakool iyo markiyo seeda baradxaawo sudihii kismaayo iyo gedo barasankii ciidda waa meelihii lagu sardabay sagow abraarkiiye sahay lagama helo beerihii saraca weynaayaan. wuxuu ula bayrayaa xagga diinta wuxuu ku cabsigelinayaa aakhiro iyo dembiyadii ay kala galeen ciqaabta uga iman doonta. markaas buu leeyahay naftana mawdku laba saayiro saacadba u qoran markuu malaga nagu soo socdaa ruuxa naga siibo su-aal baa dambaysoo qabrina weyna sugayaaye sakatiga qiyaamaha markuu salala insaanku ma sahlana amuuraha socdaa saad u maqasheene sukaaraa la moodaa markay sidin sirqoobaan suldaan iyo wasiir ma jiro iyo laan saraan ahaye sokeeyiyo halkaa lagama helo tol iyo saaxiiba soconna maayo laaluushkan aad madaxda siisaane kuwa naarta lagu sayraye lagu saloolaayo iyo kuwa sariirihii jannada boqorku siinaayo haddaad saafto labadaas saf way kala sarreeyaane. ugu dambaysta abwaan qorana wuxuu ku talinayaa intaan eebba xisaabin in soomaalidu ay isxisaabiso inay ka toobad keento folxumooyinkii ay isku samaysay dabadeedna siday eegga ku sugan tahay si ma ahee ay talo isugu noqoto intay wax aqoonta meel isugu keento. soomaaliyay waad ogtihiin waxaad samayseen sabaanadanba waynagu yaraa saadka aakhiro kuwa saalixiintaha intoo talada loo sooco haddii aan wixii hore socdee loo sacyiin hawsha waa layna soo saarayaa saa dambe aan dhowrag. waa gabay laba tuduc markii laga reebo habka saddexleyda ku tirsan kaasoo ah mansayahanadii waaweynaa qaarkood hababkii ay u gebi jireen midkood. waa gabay dheer hase ahaatee akhris iyo dhegaysiba aan lagu daarayn madaxaygana sababtu waa ujeeddada sare ee uu xambaarsan yahay iyo erey maansadeedka qirada weyn leh ee gabyaagu uu inoogu soo gudbinayo.